maalin wanaagsan daawadayaal halkan waa barteena Facebook iyo YouTube-ka ee Bilan Radio ku soo dhawaada wararka maanta aan idin haynana waxaa kamid ah dhimasho iyo dhaawac ka dhashay qarax ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ciidanka NISA oo howlgal ku soo qabqabtay xubno sarsare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab maamulka gobolka Hiiraan oo la wareegay agab loogu talagalay sugidda ammaanka doorashooyinka ka dhacaya magaalada Beledweyne xildhibaan Mahad Salaad iyo madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guleed oo jawaab lama filaan ah ka bixiyay weerarkii afka ahaa ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu ku qaaday ra'iisul wasaare Roble dadka u dhintay abaarta gobolka Gado oo sii kordhaysa taas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada wararka maanta ee Bilan Radio aan idinku hayno daawade waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan fadlan like saar si aad noogu dhiirigelisid si share gareysi saaxiibadaada ay u gaaraan wararka maalinlaha ah ee aan soo bandhigno dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa uu ka dhashay qarax ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose degmada Afgooye ee gobolkaas ayaa waxa ka dhacay qarax loo adeegsaday miino la dhigay meel aan ka fogeyn fariisin ay leeyihiin ciidanka amniga ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay laba kalena way ku dhaawacmeen dadka dhaawacmay ayaana loo qaaday xarun caafimaad oo aan ka fogeyn goobta qaraxa uu ka dhacay sida ay sheegeen ila wareediyo ku sugan degmada Afgooye qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay xaafadda Xawataako ee degmada Afgooye waana qaraxii labaad oo toddobaadkan gudihiisa ka dhacay deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya qarax ayaa 19 bishan ka dhacay magaalada Bardaale ee gobolka Bay oo ay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof oo shacab ahaa iyadoo ay ku dhaawacmeen sidoo kale 10 qof qaraxaas ayaa waxa uu ka dhacay suuq ay ku yaalaan dukaamo maalmaha jimcaha ah dadka reemiga ah ay u dukaamaysi yimaadaan iyo sidoo kale suuq yar oo lagu iibiyo qaadka isla Shabeellaha Hoose ayaan ku jirnaaye ciidanka nabadgelyada gaar ahaan kuwa loo yaqaano Duufaan ayaa howlgal baaritaano ah oo qorsheysan waxay ka fuliyeen isla degmada Afgooye oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose howlgalkan saraakiisha hogaaminaysa ayaa waxa ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen 3 xubnood oo sarsare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab xubnaha gacanta ay ku dhigeen ciidamada hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa waxa ay dagaal ku hayeen ama ay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab oo dagaal kula jirta dawladda federaalka Soomaaliya iyagoo Al-Shabaab u qaabilsanaa qaraxyada iyo miinooyinka kuwaas oo qorsheynayay in howlgallo shacabka dhagar loogu maleego ayay yiraahdeen saraakiisha hogaaminaysa ciidanka Duufaan oo miino ay u aasaan iyo sidoo kale qaraxyo ay ka fuliyaan magaalada Muqdisho ayuu yiri sarkaal u hadlay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka gaar ahaan ciidanka Duufaan ciidanka hubeysan ee Duufaan ee NISA oo toddobaadkii la soo dhaafay waxay howlgallo kala duwan ka sameeyeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan magaalada Muqdisho iyo duleedkeeda hagaag markan waxaan eegaynaa gobolka Hiiraan maamulka gobolka Hiiraan ayaa waxa ay la wareegeen agab loogu talagalay sugidda amniga doorashooyinka oo ka dhacaya magaalada Beledweyne ayaa lagu wadaa 25 kursi oo kamid ah golaha shacabka in halkaas lagu soo doorto maamulka gobolka Hiiraan ayaa la wareegay agabkan oo ahaa hubinta gaadiidka iyo sidoo kale dadka caadiga ah si loo sugo amniga ayaana loogu talagalay maamulka gobolka Hiiraan in ay qayb ka qaataan agabkan sugidda oo muhiim u ah amniga doorashooyinka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo la filayo inay ka dhacaan doorashooyin laguna soo doorto ilaa 25 xildhibaan oo golaha shacabka kuwaas oo ka imaanaya maamulka Hirshabeelle maamulka gobolka Hiiraan ayaana aad uga mahad celiyay ka qayb qaadashada sugidda amniga oo agabkan door muhiim ku ah maadaama lagu wareejiyay xildhibaan Mahad Salaad iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guleed ayaa waxa ay si lama filaan ah kaga jawaabeen weerar afka ah oo uu Cabdiraxmaan Cabdishakuur ku qaaday ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guleed oo hadda kamid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya iyo xildhibaan Mahad Salaad ayaa si weyn u difaacay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo ay isku heb yihiin
cabdikariin xuseen guleed ayaa ugu horeyn waxa uu sheegay in ra-iisul wasaare Roble ku amaanan yahay doorka uu ku leeyahay doorashada dardargelinteeda isla markaana mas'uuliyadda dib u dhaca ay leeyihiin madaxda dowlad goboleedyada iyo guddigooda doorashooyinka sida uu sheegay. waxaan wada ognahay in mas'uuliyadda doorashada saaran tahay golaha wada tashiga qaran guud ahaan gaar ahaanna madaxda dowlad goboleedyada iyo gudiyadooda doorashada si gaar ah loo siiyay mas'uuliyadda fulinta doorashooyinka ayuu yiri. haddii dhaliil iyo gaabis uu jirana runtii xaggooda ayay ka jirtaa oo farta ku godan tahay, waana xaqiiqada dhabta ah in dhaliilo waaweyn ka jiraan habsami u socodka doorashooyinka haddii ay ahaan lahaayeen diritaanka iyo daafurnaanta ama xogaha hufnaanta ah iyo kalsoonida lagu qabo ama lagu qabi karo sida ay wax u socdaan ayuu yiri madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug cabdikariin xuseen guleed ahna musharax u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya. sidoo kale waxa uu sheegay in Roble looga baahan yahay xilligan in uu si laba jibaaro dadaalada uu ku doonayo qabsoomidda doorasho hufan oo lagu kalsoonaan karo. xildhibaan Mahad Salaad ayaa isaguna su'aal geliyay sababta xilligan weerar loogu qaaday ra-iisul wasaare Roble isla markaana indhaha looga qabsaday maamulada iyo siyaasiyiinta u sheegay in ay yihiin doorasho diid. farmaajo doorashada dalka ka socota dibajoog ayuu ka yahay in muddo ah. dalabkaas waxaa lahaa maamul goboleedyada qaarkood iyo mucaaradka. Roble si gaar ah waxa uu ugu xil saarnaa doorashada Somaliland. aqalkii sare si sharaf leh ayuu u qabtay. golaha shacabkana maalmaha soo socda ayay bilaabanaysaa ayuu yiri. sidoo kale waxa uu sheegay in dowlad goboleedyada xulafada la ah filla Soomaaliya ay wadato doorashadeeda gaar ahaan Dhuusamareeb iyo Baydhabo isaga oo sheegay in Jowharna jidka ku soo jirto. haddaba waxaa isweydiin mudan sababta ra-iisul wasaare Roble loo xagxaganayo oo indhaha looga qabsanayo maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta doorasho diidka ah ee ilaa iyo hadda lagu kari la'yahay. hadalka Mahad Salaad iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug cabdikariin xuseen guleed ayaa imaanaya kadib markii uu siyaasiga caanka ah ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame sidoo kalena ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha oo si lama filaan ah weerar dhanka afka ah ugu qaaday ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo bartiisa Facebook qoraal soo dhigay ayaa marka hore su'aalo badan ka keenay xaaladaha ku soo kordhay gaar ahaan sida uu ku soo dhamaaday kiiskii Ikraan Tahliil oo uu ra-iisul wasaaruhu horey u ballan qaaday in uu heli doono cadaalad. dib u dhaca ku yimid doorashada 2021 iyo dhaliilo loo qaadan karo wadanka Eritrea. hagaag qaybihii ugu dambeeyay ee wararkeena ayaan isla soo gaarnay. markan waxaan eegaynaa xaalado abaaro daran ayaa laga soo sheegayaa qaybo ka mid ah gobolka Gado. maamulka gobolka Gado ayaa sheegay in ugu yaraan 4 qof ay marayso tirada dadka gaajada iyo oonka ugu dhintay gobolka. arrintaas oo ka dhigaysa xaaladda mid ka sii daraysa oo abaarta faraba'an ay ku hayso deegaanada gobolka Gado. gobolka Gado ayaa ka mid ah gobolada Soomaaliya oo ay saameysay abaarta kadib markii ay baaqdeen roobabkii dayrta. dhawaan ayay ahayd markii qaramada midoobay ay sheegtay in bisha May ee sanadkan soo socda 7.7 milyan oo qof oo Soomaaliya ku nool ay kaalmo bini'aadanimo u baahan doonaan. qaar ka mid ah gobolada dalka ayaa weli waxaa ka jirta abaaro baahsan kuwaas oo saameeyay dadka iyo dunyada iyadoo aysan jirin gurmadyo xoogan oo dadka loogu gurmanayo. guud ahaan warkii aad ka daawanayseen barteena Facebook ee Bilan Radio waa inaga intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. nabadgelyo waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan daawade.